بسم الله الحمد لله وفى به نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. runtii horta waxaan go'aan ka gaadhay inaan video dambe oo live aan soo dhigino qof kasto waalan iyo habar kastaba hadii hadda live ay soo galayso oo dadka inta aqliga iyo xikmadda leh hadda laga badiyay waxaan doonayaa inaan wax yar halkan ka ilaahdo oo ku saabsan arrimaha Jubbaland. runtii horta maanta Facebook iyo social media wuxuu gacanta u galay makas aan aqli iyo cilmi iyo garasho iyo damiir iyo dadnimo aan lahayn. waxyaalaha lagu soo qorayo oo waxyaalo aad looga yaqyaqsado oo qof damiir leh aanu ku dhiiran karin mararka qaar kood in la iska badaayo dadka horta qabanaysa. laba qodob baan yaan doonayaa inaan ka hadlo. mid waxa weeyaan xildhibaanada Jubbaland, midda labaadna waxa weeyaan dadka kale ee aan xilka ka haynin Jubbaland ama Soomaaliya oo dhan. walaalayaal xildhibaanada Jubbaland iyo xildhibaanada kale ee Soomaaliya meel kasto ay joogaan shaqada dadka shacabka anigu aan ku jiro u daayo faraha la soo galina idinku shaqadiina qabsada. macnaha waxaan ka wadaa xildhibaan baad arkaysaa ama nin wasiira oo social media wax ku soo qoraya. war dadka social media hayna wax ku soo qoraan la rabo waa annaga shacabka aan xilka haynin ama siyaasiyiinta kale ee hadda kursi ku fadhiyeen. xildhibaan adigu waxaad leedahay kursi iyo xasaano miiskaaga iyo booskaaga intaad fadhiisatay iyo golahaaga wixii aad sheeganaysa halkaa ku sheego. way hay'adda sharci dejinta tahay wixii aad dhaliiliyo waxaad ayaysa halkaa soo maray oo nooda arrinta maqaalada iyo artikalada la soo qorayo annaga iska leh adoo shaqadaada halkaa ka qabsan. macnaha waxaan ka wadaa waxaad arkaysaa nin xildhibaan ah iyo wuxuu soo gelinayaa baraha bulshada dawlad baa yaa la radaya xukuumad baa wax laga keenaya wax noocaas oo kale ah. hawshaada kuma taalo idinku hadda rabtaan shir jiraa'id qabta idinku xildhibaano ah soo istaaga shir jiraa'id qabta ama idinku xildhibaano ah wasiirada aad rabtaan inaad ridaan ama aad la xisaabtamaysaan aqalka baarlamaanka ugu yeerta. inta wixii ka dambeeyay waxaan u arkaa waa fawdo iyo sharaf dhac iyo wax muujinaya jagada uu qofkaas u hayo inaan u qalmin. mid waxaan leeyahay dadka kale shacabka qofka xildhibaanka ah kursi uu ku fadhiyo dadka oo dhan iyo deegaanka oo dhan buu matalaya qabiil iyo qoys ma uu matalayo. haddii qofku uu sharciga wax ka baxsan uu ku dhaqmo talaaba laga qaadaya cadaalad la horkeenaya. idinku waa inaad aqbashaan cadaalad in la horgeeyo marka qofka. laakiin anagoo nin reeqan saxa yaa la qabtay oo khalad sameeyay lamana hadli karo oo annaga dagaal iyo waxbaan abuurayna waxaas waa wixii laga soo tagay waxa waa wixii laga soo tagay. xildhibaankii hore Axmed Taajir haddii uu saxsanaa iyo haddii uu khaldanaaba cadaaladda la horkeenaya. idinku waa inaad cadaaladda ku qanacdaan marka. laakiin maanta in la yiraahdo dagaal baa dhacayo see loo taabtay kan loo taabtay macnaha waxa weeyaan qaadi qariyo isla ogaayeen way cidda durbaanka tumaysa iyo cidda macnaha hadda qayliyaysa way la ogaayeen isaga daba taagnaayeen. waxaan leeyahay deegaanka nabad hal lagu soo celiyo buuq iyo qaylo waxba lagu heli karo. waxaan leeyahay xildhibaanka hay'adaha cadaaladuna hawlo dhaqmaan si cadaalad ah wax allaale wuxuu mutaystan hal la mariyo. haddii uu khaldamayna khaladkiisa hal laga gooyo haddii uu khaldamin oo loo gafayna waa in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo haddii la xidhay. intaa wixii ka dambeeya waa yoonyo. marna lama aqbali karo Jubbaland carqalad iyo qabiil iyo dagaal hubaysan oo kale in dib loogu celiyo lama aqbali karo. wax la aqbalay ramaha ummadan dagaal baa soo daashaday qabiil wuu soo daashaday xumaan iyo colaad way soo daajisatay xumaan iyo colaadna diyaar uma aha. waxaan ku soo gabageenayaa dadka qurbaha jooga
يا أم عيد قادني أما شقيسني يا عرورهودي يا حاسس كود أي وحبرنا يا عفلان هايستان ولا لي ضدك مساكين ودن جيجوا ههرنينا دجال يدينكو إذا محبك قبل كرم هجرينينا هذا ضدك أوتر هايستان دجالك يا علاد يا أغليات دي نوجد جوتشي أنت أسألنا دلنا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.